عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان صاحب الصوماليات ملك السعود جوكتان يسكستو عبد الله ونسا حلو والأكسل كان سنوحوا أها مدحوين سعيد عبد الله الدني وجواب كل سيي حصل الشيخ محمود طبعا واضح خصوصا بريي حاشا محمود لها اسكوداي دل أيان كبت باتني قار أهان حبينكي هوتيل مائدة وعوي نينك اللي تهو مجرين نينك عباد وينه مجرين دلنا وحو حسوسيي بريغاس سيدي ugu gurmaday sidoo kale intaas kuma ekeysane madaxweyne dani wuxuu mar kale u jawaabay ninka la yiraahdo Xamsi Cabdi Barre oo isagana beerka uga dhacay bal haddana daawasho wanaagsan waxaan ka xumahay in Xamse maalin dhaweyd hadallo uu ku hadlay waxaan aad u jeclaa odayga hadalka uu soo dhiibay inuu sidaas yiraahdo hadalkaas ninka uu soo dhiibay waan garanaynaa reer Puntland cuqdad ma qabto waxay rabtana ma sheegi kari waayeen waxaan qabno way cad yihiin dawladnimada dantan ka leenahay way caddahay aragtideena siyaasadeed way caddahay cidda cuqdada iyo Soomaali nacaybka ku jirto dadku wuu yaqaanaan ninka dadkiisi dilayay oo madaxdiisi dilayay oo ismadiisi ku hogaaminaya daroonka ninkaas aan filayaa inuu cuqdadaysan yahay Soomaalina cuqdadaysan yahay reer Puntland cuqdad lagu ma yaqaano waa dadkii xorriyadda iyo halganka waa dadkii Soomaalinimada ku sifoobay wayna ku sifoobi doonaan haddii Ilaahayno arrintaas waxaan rabnaa inay dhegta u dheeraariciyaan jiilka soo karaya midnimada iyo wadajirka Soomaali iyo ka shaqaynteeda waa arrin asaasi u ah jiritaanka iyo dhismaha Puntland iyo kan Soomaaliya ay u maadsan yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dine dabcan baashu weli gacan ma gaarin oo waxay taagan tahay af marka waxa weeye nin walba yaan laga af badin bay baashu taagan tahay sidoo kale odagii la oran jiray Cabdiraxmaan Cirro ayaa wuxuu dareemay khalkhal aad u weyn odagii wuu wareeray darad waxaan idin la wadaagay in la hayar gareynayo oo la shaqo gelinayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo shalay aynu ka soo horjeedno oo aan lahayn ilaahayow mid dhaama kan reer Somaliland u door laakiin sida muuqata Muuse Biixi ayaa ka wanaagsanaa Cirro Muuse waxaa lagu xaman jiray Muuse Looka waxa weeye nin arrimaha gudaha u maarto u badan oo banaanka aan wax badan ka goyn buu ahaa laakiin armaaba kaasi wanaagsanaa warkaas ama fiicnaa maanta xaajadu halkaas ay maraysaa sababtoo ah Muuse xifaaltankii Soomaalida ka dhixeeyay ahaa muxuu ahaatay reer hebel annaga ka adkaan jirnay awooyaashiina hadda koor ka adkaanay weligeena lama jibin alaabtii aan garanaynay ayuu hadalkiisa ku ekaa laakiin waxa yimiday nin intuu badaha tallaabay soo rartay dadka adduunka ugu xumay aswa unnaas adduunka dadka ugu xumaa nin tunka soo saartay ayaa yimid ninkaasu maanta wuxuu isaguna u jawaabay ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi oo uu hayo xogta ah in Muuse ku soo wajahay wuxuu yiri marka Muuse muxuu ahaa wixii aad ku fashilantay aniga keenay shalayna waad igu raacsanayd bartaadii joog warkayaan idinku daalinay bal hadda ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan Cirro oo khalkhal weyn ka muuqdo isagana ila daawada والله صاحب اعتراف يا دونيسي وعكو قوليستي أنيقا وما أنت مدحويناه صاحب كي موسى هو دالي وحانو غيريا إنو دالي ويتقي ما الله يلاحظو ديني كناكري وعكا كاني اعتراف هسا يشيولي واقبي اعترافك وهكذا بيسي وهذا لينا يلي اعترافي وعنك كان إثيوبيا ولي وغبيو والله صاحب اعترافي يا دونيسي وعكو قوليستي أنيقا وما أنت مدحويناه واتسودويس وانا كاغا مادنقيا ادو بيرتاده جوغا لغو سو شيغا
beertii waad ka soo carartay si aad xafladda wada qayb qaadato waxaan leeyahay saaxiibkay wadadii wanaagsaneed haysay ha ka leexan waayahay waxay la tahay dabcan inaad aragteen khalkhalka iyo dhibaatada haysata ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro waxa weeye Somaliland anagu burbur ma doonino dhibaata inay ku dhacdana ma rabno laakiin waxa uu soo waariday ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro wax wanaagsan maaha nimankaasu waxa weeye ahlu shar siday u yihiin hadda waxa la sheegaya haddana meel halkan oo muxuu ahayti Serbia iyo agaheed inay ka kaluumaysanayaan oo qolo kale oo iyaduna doonaysa inay gooniisuta ku dhawaaqdo ay leeyihiin horay u socda la jamiin baa tihiin nimankaas waxa weeye niman adduunka dhamaantii in rabsho ay ka dhacdo doonaya laakiin anagu waxa weeye insha Allah taala haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed arrinkaas waxa weeye saxar qordhiga la isaga tiraaye laba galood baan isaga riixi doonaa dhanka kale Xasan Maxamed Cali Sow ina Suuban Sabriye ayaa xalay magaalada Muqdisho ka sameeyay dhoolatus weyn oo markaasi uu ku soo bandhigay ciidamo kala gedisa sidoo kale qaab gaadma ah ayuu shacabkii dabaaldegay ee 1 July u dabaaldegay ugu soo dhex dhoontay meelaha qaar xalay waa lagu fiijiyay oo waxa la yiri Xasan Tuug Xasan Burcad qaylada ka yeerisa yeeshee waxa weeye adugu uu isku sawiray ummadii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho deganay hadda ogow waa dadkii uu barakiciyay reer Muqdisho lama eedi karo sababtoo ah marna kuma fikireen in Xasan Sheekh Maxamuud oo waxay ogaayeen ku sameeyay ku soo dhiiran karo inuu soo dhex istaago laakiin qofku hadduusan damiir lahayn hadduusan muxuu ahayd qof xishoonaya ahayn wax kasta way ka suurtoobaan waxaan leeyahay marka yaan leedinku khaldin in Xasan Sheekh Maxamuud xabar taageero ku haysto waxa weeye qaab dhuumaalaysiya ayuu shacabkii iska dabaaldegay xalay soo dhex galay waxa weeye wax taageera oo magaalada Muqdisho ku haystaana ma jirto weey mucaaradka waxa ku bilowday in xagga media laga diro ninka Xasan Cali Khayra xalay khudbad buu jeediyay 10 daqiiqo ah Facebook-giisa waa laga saaray wuu ku soo celiyay haddana waa laga saaray dhammaan raggii muxuu ahayd soo geliyana waa laga saaray ogaada marka dulqaadyarada iyo doqonnimada kooxda Xasan Maxamed Cali Sow حتى وركي أيوة كيسن لأيه هنا لو يري نينان ورسوين ورن مسوق كواس هدي ركب لأنه هانا محلو مرين لهيد إن شاء الله تعالى سألك ماشي اللي تنسوقينا برنامج كده تنسوق سوق بمينيا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله.